kow magacyada. Magacyadu waa erayo lagu aqoonsado qof, xayawaan, meel, shay iyo wax la mid ah. Waxayna u kala baxaan 7 qaybood. Magacyo gaar ah sida Hargeysa. Badanaa magacyada gaarka ah marka la qorayo waxaa la isla qaatay in xarafka ugu horeeya la weynaysiiyo marka aynu isticmaalayno farta Laatinka. 2 magacyo guud sida magaalo. 3 magacyo caadiyaal ah, magacyo la taaban karo ama magacyo shanta dareen lagu ogaan karo sida gabar. 4 magacyo cilanaad ah, magacyo aan la taaban karin, shanta dareen lagu ogaan karin oo iska aragtiya sida jacayl. 5 magacyo tirsama. Magacyadan toos waxaa looga horeysiin karaa tiro sida 4 buug, 4 xaanshiyood iyo wax la mid ah. Magacyo aan tirsamin. Magacyadan lagama horeysiin karo tiro. waxaana tusaale ka mid ah sonkor. Marka la doonayo in tiro la isticmaalo waxaa la leeyahay waxaa loo dhexaysiinayaa cabir, erey cabireed sida 4 kiilo oo sonkor ah isii. haddii kiilada meesha laga saaro 4 sonkor ah isii macno ma sameynayso. marka magacyadan waxaa la yidhahdaa magacyo aan tirsamin. iyo 7 ugu dambeyn magacyo urur ah oo muujinaya koox sida dad, arday iyo wax la mid ah. Magacyadu waxay yeeshaan cayn oo ah astaan lab ama dhadig. Astaamaha magacyada markaynu ka hadlayno waxay yeeshaan cayn. Waa lab ama waa dhadig ayuu kala baxayaan. Tusaale ahaan labka waxaa ka mid ah wiil, waraabe, qori. Dhadigana waxaa ka mid ah gabar, dawaco, baliil. Waan ognahay qori inuun lahayn xubin taran oo lagu ogaado lab iyo dhadig wuxuu yahay. Waa qori. Laakiin naxwo ahaan wuxuu raacayaa marka dhismihiisa la eego iyo wuxuu qaadanayo iyo siduu weerta uga qayb galayo. Ereyga qori wuxuu noqonayaa magac lab ah cayn ahaan. Sideedaba markuu magacu ku dhamaado xarafka e waxaa loo aqoonsanayaa inuu yahay lab. Tusaalena waxaan usoo qaadanay ereyga waraabe. sida kale markuu magacu ku dhamaado xarafka o waxaa loo soo qaadan waxa weeye cayn ahaan waa magac dhadig sida aan usoo qaadanay tusaalahan dawaco. Astaamaha kale magacyadu yeeshaan waxaa ka mid ah inuu yeesho qaab ama qaab wadareed. Qaababka magaca marka laga hadlayo wuxuu yeelanayaa qaab wadar buu noqonayaa ama cadad wax la yidhaahdo ama tiro oo keli iyo wadar u kala baxaysa. sidaas daraaddeed iyadoo magacyada kelida ah ayaa lagu lifaaqayaa dibkabayaal wadareeya. af, kab waxaa lagu mid walba xagga dambe ayuu ka tarmay ereygii waxaa ku lifaaqmay dibkabayaal. kadibna waxaa soo baxay inaynu ereyadii kelida ahaa aynu wadareennay ama aynu u adeegsanay qaab wadar ahaan. af, afaf, kab, kabo, hooyo, hooyooyin. marka way badan yihiin qaababka loo wadareeyo. intaas baan halkan kaga soo qaadanay tusaale ahaan. Wadarayntan haddaba noocaasa waxay ku xiran tahay xarafka ama codka uu magacu ku dhamaanayo iyo weliba cayntiisa. ugu dambeyn marka ereyga saa loo eego xarafka uu ku dhamaanayo ama codka ugu dambeeya xarafka ugu dambeeya iyo caynta uu yahay iyadoo la eegayo ayaa qaab wadareedkiisana la heli karaa. siyaabo kala duwan ayaanu ugu soo bandhignay buugga sayska naxwo af Soomaaliga. halkanse kuma faahfaahinayno. ugu dambeyntii waxaa jira magacyo waxyaalaha la tirinayo lagu aqoonsado oo u kala baxa. 1 tiraale sida 1 2 3 tirooyinka caadiga wax lagu tiriyo iyo jagaale sida 1 2 3 4 oo ay ka dhigan tahay imika tirooyinka waxaa lagu muujin karaa waxa la yidhahdaa martabad ama kaalin. shaxda ugu dambeysa aynu soo bandhignay ama shaxanka ugu dambeeya wuxuu sheegayaa qaybihii kala duwanaa ee magacu u kala baxayay. magac guud gaar. magaca guud wuxuu sii kala baxayaa cilanaad, caadiyaal. caadiyaalku wuxuu sii kala baxayaa magacyo aan tirsamin iyo magacyo tirsama. magacyada aan tirsaminna waxaa ka mid ah magacyo urur ah. lama odhan karo 4 dad baa halkaa marayay. haddaad xasuusataan magacyada aan tirsamin toos looguma horeysiin karo tiro.